بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كسو دواada daawadayaal maanta waxaan halkan u fadhinaa dood gaar ah oo ay soo qaban qaabiyeen macadka CPAM Institute iyo Tusma TV waxaan kaga hadli doonaa hadii la yiraahdo doorka ay ku leeyihiin ama xiriirka ka dhaxeeya hay'adaha dawliga iyo hay'adaha aan dawliga ahayn gaar ahaan ganacsiga gaarka loo leeyahay xiriirka ka dhaxeeya hadii la doodaas marka waxay kala qayb gali doonaa gacantayda midigta fadhiyo jahwey waxa gacantiisa kala midigta fadhiya Axmed Cilmi gacantayda bidixda soo waxa fadhiyo Qorsheel waxa gacanteeda bidixda shisha fadhiyo Ablaal hadii ay ilaa marka hore intaana doodeena u garin waxaan rabaa barnaamij hore dhaca warbixino koobana in aan idin la wadaagno kadibna aan doodeena ku soo laabano macadka maamulka iyo maareynta arrimaha dawliga ee CPAM Institute ayaa sameeyay daraasaad kooban oo uu ku eegayay saameynta ganacsiga gaarka ah oo ku leeyahay go'aanada iyo siyaasadda dawladda markii ay burburtay dawladdii Soomaaliya 1991kii waxa meesha ka baxay dhammaan hay'adihii dawliga ahaa taa waxay dhalisay in ganacsiga gaarka ah ay buuxiyaan booskii ay ka baxeen hay'adihii dawliga dhammaan adeegyada oo dhan sida waxbarashada caafimaadka maaliyadda fursadaha shaqo waxay noqdeen kuwa ay bixiyaan ganacsatada waxaa intaa dheer ganacsatada waxay bilaabeen qabashada adeegyadii dawladda ay qaban jirtay sida sameynta baasboorada daabacaadda lacagaha sugidda amniga aruurinta canshuuraha iyo wax la midka ah wixii ka dambeeyay sanadkii 2000 markii dawlad Soomaaliyeed lagu soo yagleelay magaalada Carta waxa si tartiib ah u soo noolaanayay hay'adihii dawliga ahaa inkastoo kartida hay'adaha dawliga wali yar tahay haddana sharciyan waa hay'ado dastuuri ah oo u igman inay howlahooda qabsadaan balse waxaa muuqda in ganacsiga gaarka ah saameyn weyn ay ku leeyihiin daraasaadda uu sameeyay macadka CPAM waxa uu tusaale u soo qaatay dhowr qaybood sida arrimaha xajka waxbarashada ganacsiga iyo isgaarsiinta xajka dhammaan shirkadaha ka shaqeeya arrimaha duulimaadka waa shirkado gaar loo leeyahay xajka waa munaasabad sanadle ah oo ay si weyn u qiimeeyaan dhammaan muslimiinta wasaaradda xajka iyo xukuumadda Sacuudi Carabiya ayaa sanad waliba qoondeysa wadan waliba inta qof ee ka soo xajinaysa Soomaaliya waxay leedahay wasaaradda diinta iyo awqaafta balse muddo dheer waxa arrimaha xajka gacanta ku hayay laba shirkadood oo gaar loo leeyahay sanadkan waxa la bedelay shirkadaha ka shaqeynayay arrimaha xajka taas oo ka dhalatay kadib markii ay dawladda bedeshay qaabkii loo maamulayay arrimaha xajka isbeddelka siyaasadda dawladda waxa uu ka dhashay isqabqabsi ka dhex yimid shirkadaha daneeya arrimaha xajka waxbarashada markii ay burburtay dawladdii dhexe shakhsiyaad iyo hay'ado gaar loo leeyahay ayaa u istaagay sidii dadka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen waxbarasho si kastaba ha ahaatee waxa soo baxay dalado iyo jaamacado awood siyaasadeed oo weyn leh sidoo kale waxa hooseeya tayada waxbarashada maadaama dad badan u galeen howlaha waxbarashada inay ka ganacsadaan wasiirkii hore ee waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan ayaa waraysi u siiyay warbaahinta 25kii Julaay 2018 ku sheegay in wasaaraddiisa aysan aqoonsaneen jaamacadaha dalka isagoona u sababay inaanay jirin qaab lagu mideynayo tayada waxbarasho ee dalka anaga ma jirto jaamacad aan aqoonsanahay oo jaamacad ahaan aan u aqoonsanahay oo aan dhihi karno jaamacadani ma arkaysa waan aqoonsanay oo academic functions ka leedahay ama maxaan ku sheegaa qaabkay u samaysan tahay iyo tacliinta ay bixinayso waan aqoonsanahay jaamacad aan dhihi karno ma jirto sababta waxa waaye ko waan qiyaasaynaa in jaamacad badan oo dalka ku yaalo ay soo buuxinayaan standardskii caalamiga ahaa oo jaamacadka ay lahayn ama wax ku dhow laakiin wali maanaan isku imaanin oo aanan samaysanin standardskaas 26kii Julaay maalin kadib markuu waraysiga bixiyay waxa jagada laga qaaday wasiir Cabdiraxmaan ganacsiga sanadkii 2017kii waxa khilaaf soo kala dhaxgalay wasaaradda ganacsiga iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed 26kii Agoosto 2017kii Qadro Axmed Ducaale wasiirka wasaaradda ganacsiga ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaqo joojin ku sameysay guddiga maamulka rugta ganacsiga Soomaaliyeed rugta ganacsiga way diideen inay aqoonsadaan
go'aankaas iyaga oo ku tilmaamay sharci daro. bishii Janaayo sanadkii 2018 wasiirka wasaaradda ganacsiga Qadar Axmed Ducaale ayaa laga qaaday xilkii wasiirnimo. isgaarsiinta waxaa dhawaan la sameeyay hay'adda isgaarsiinta qaranka sida uu qabo sharciga isgaarsiinta ee la ansixiyay 2017. hay'adda waxaa loo igmaday inay nidaamiso isgaarsiinta dalka. si kastaba ha ahaatee shir ay qabteen ururka shirkadaha isgaarsiinta Soomaaliyeed USIS bishii December 2018 waxay eedeyn u jeediyeen wasiirka wasaaradda boostada iyo isgaarsiinta iyagoo sheegay in wasiirka mudnaan siiyay hal shirkad markii uu xulay maamulka hay'adda isgaarsiinta qaranka. Cabdifitaax Durdur, telefishinka iyo raadiyaha TMG, Muqdisho. waan kaga mahad celinaynaa kasoo qaybgalkiina aad naga aqbasheen inaad doodan nagala qayb gashaan. runtii sababta nagu dhalisay macad ahaan inaan arrintan fiirino waxay tahay waxa aan ka shaqeyno waa arrimaha dawliga gaar ahaan maamulka iyo maareynta. waxaa jira marka in dhaqaalaha intiisa badan uu gacanta ugu jiro hay'adaha gaarka loo leeyahay. shaqaalaha ugu badan ayaga ayay ka yimaadaan. marka lagama maarmayo mar walba macad ahaan inaan fiirino xiriirka ka dhaxeeya dawladda iyo kuwa aan dawliga ahayn, ha noqdaan ganacsiga ama ha noqdaan kuwan loo yaqaan voluntary sector-ka ama arrimaha bini'aadamnimada ka shaqeeya. taa anagoo marka ka duulayna ayaan waxaan sameynay cilmi baaris kooban oo aan ku fiirinayno xiriirka labada dhinac ee ka dhaxeeya. dadkiina marka hadda mudanayaasha oo sharafta leh aan ku casunnay waxaan ku xulanay waxay tahay anagoo fiirinayna qof walba meesha uu backgroundkiisa ama macnaha uu ka soo shaqeeyay ama aqoonta uu leeyahay gaarka ah. gacanteeda midigta sida hadayta aan sheegay waxaa fadhiyo mudane jahweyn taariikhdiisa nooleed qayb ka mid ah wuxuu wax badan ka qaatay arrimaha isgaarsiinta. wuxuu waayo arag u yahay arrimaha isgaarsiinta. axmed cilmi oo asagana midigteeda shisha fadhiya waxa uu hadda ka shaqeeyaa arrimaha caymiska. sidoo kale dhankayga bidixda waxaa fadhiya qorsheel oo ka soo noqday wasiirkii gaadiidka iyo cirka iyo dhulka wax badanna kala socda arrimaha gaadiidka cirka iyo arrimaha xajka. gacanteedaas bidixda waxaa fadhiya ablaal oo ka soo shaqeeyay daladaha waxbarashada iyo hay'adaha waxbarashada wax badanna kala socda arrimaha waxbarashada. marka haddii la yiraahdo waxaan doodeena ku fiirinaynaa xiriirka ka dhaxeeya shirkadaha gaarka loo leeyahay ama ganacsiga gaarka loo leeyahay iyo dawladda, hay'adaha dawladda, maadaama sida warbixinta lagu sheegay ay bilaabeen in hay'adihii dawladda ay dib u soo laabtaan muddo dheer kadib. runtii marka waxaan rabaa intaanan qaybtaas aan doodeena u gelin inaan mahad weyn aan u celino oon aqoonsano dadaalkii ay sameeyeen dadka shirkadaha gaarka lahaata iyo shakhsiyaadka u istaagay Soomaaliya muddadii ay dhibaatooyin ka jireen. gaar ahaan maana haddii aanan la heli lahayn dadka shaqeeya waxbarasho, haddaanan la heli lahayn dadka shaqeeya caafimaad, haddaanan la heli lahayn dadka shaqeeya maanaha xajka. maanaha Soomaalida kulli sanad walba xajka intaas way aadayeen. duruuf kasta ha jira, dhibaato kasta ha jira, dad baa u istaagay ka soo shaqeeyay. sidoo kale isgaarsiinta kale dad baa ka soo shaqeeyay. marka macnaheedu ma aha in aan xaqirayno ama yaraynayno. runtii waxay mudan yihiin ammaan iyo sharaf ay mudan yihiin dadkii ka soo shaqeeyay, hay'adihii ka soo shaqeeyay. hadda laakiin waxaa soo muuqday ama soo dib u soo unkamay hay'adihii dawladda. marka doodabana waxay ku saleysan tahay muxuu noqonayaa doorka hay'adaha dawladda, muxuu noqonayaa doorka shirkadaha gaarka loo leeyahay, muxuuse noqonayaa xiriirka kala dhaxeeya labada dhinac. sidoo kale saameyn intee la eg ayay ku leeyihiin shirkadaha gaarka loo leeyahay hay'adaha dawladda. marka haddii la yiraahdo doodan waxaan ku bilaabaynaa jahweyn oo ah sidaan sheegnay waayo arag u ah industry-gan ama macnaha isgaarsiintana ay tahay qaybaha ugu waaweyn ee ganacsi ahaan ama dhaqaale ahaan dalka ka jiro. mudane maxay kula tahay? bismillahi raxmaani raxiim. waa marka hore aad baan ugu mahadsan tahay macadka iyo abaabulka iyo baaritaanka iyo daraasadda aad samayseen. runtii mawduucan waa mawduuc aada muhiim u ah. muhiimadiisana sida ka muuqatay riboortka waa mid asaas u ah nolosha muwaadinka Soomaaliyeed. waxaan ogsoonahay duruufaha dalkeena uu soo maray iyo waqtiga adag iyo waqtiga hadda la joogo oo ay dawladnimada dib u soo ururtayba in ay jireen dad gaar ah oo ama ganacsataa ama hal abuur leh oo gacan ka geystay sidii dalkii wax looga qaban lahaa. dabcan waxqabadkooduna runtii meel fiican buu soo gaarsiiyey waana kula qabaa oo aan kula wadaagaa mahadnaqa aan u jeedinayno bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto dadaalkii gaarka ah ee dadka qaar ay u geysteen inay dadkii ku caawiyaan maadaama qaranjab uu dhacay dhibaatana soo gaartay. arrintan sida gaarka raba inaan u xuso
maadaama dalkii oo idil uu dagaal sokeeye ka dhacay dhinac walboo la eegana ay tahay burbur waxaan si gaara rabaa inaan u tilmaamo maadaama waqtigu kooban yahay maxaa laga qabtay maxayse ahayd taariikh ahaan isbeddelka xagga isgaarsiinta iyo teknolojiyadda waa la socotaanoo waddanka markuu burburayay waxay ahayd waqti adduunkoo idil uu socday kacdoon isbeddel oo xagga teknolojiyadda ku saabsan si daro colaadaa dhacday waddankii muddo aad runtii u kooban oo 2 sanaba ka yar markii uu dagaalku dhacay oo raantii sanadkii 93 dad baa dareemay muwaadiniina inay muhiim tahay in dalka ay tahay in dalka intiisa kala dunida lagu xiro sidaas baa adeegyada qaar ay ku bilowdeen ay ugu horeeyaan adeega isticmaalka telefoonka oo lafdhabar u ahaa xiriirka bulsho muhiimna u ahaa nolosha iyo dhaqaalaha dabcan marka xiriirkaas bilowday iyo dadaaladii la soo waday waxa dhinac socday Soomaaliduna inay baadigoob u jireen inay dawladnimada helaan dawladnimadii marka laga soo bilaabo waqtigii ay iyadana curatay mar walba way isgarab socdeen inaan la kala maarmayn marka xiriirka la sameeyay iyo dhaqaalaha la geliyay mar walba dhinaca marka la fiiriyo ganacsi ahaan guulo waaweyn buu ahaa laakiin mar walba waxa maqnaa kaalintii shuruucda iyo xeerarkii iyo sida loo dhaqaayo iyo sida ay tahay in nidaam standard ah oo adduunka laga yaqaano oo lagu kala badbaadayo inuusan meesha jirin waayo kaalintaas waxaa lahaa hay-adaha dawliga ama waxa la yiraahdo dawladda oo ah hay-ad shuraaka lagu yahay oo dadka iyo ummadda u dhaxaysa taa marka waxay sababtay si kastoo loo dadaalay wax walba oo quruxsan oo la sameeyay in mar walba uu gaabis jiray nasiib wanaag sanadihii ugu dambeeyay waanan fursadna runtii aniga shakhsiyan dadka u helay aan ka mid ahay iyo sida saaxiibkay wasiir Saciid oo runtii aan ka soo wada shaqeynay in aan dadaal loo galo in arrimahaas wax laga qabto marka in golayaashii la soo bandhigay ay soo jeediyeen shuruuc iyo hindisayaal sharciyeedyo la rabo in lagu kabo wixii ka dhinaa oo ay ku dadaaleen maaragtay muwaadiniinta soo sameeyeen dadaalkaas iyo ka warhaynta aan ka warhayno gudihii runtii waxaan dhihi karaa dad koobana aad u fahansanaa sida aysan looga kala maarmayn inayna tahay inay isla socdaan oo aysan ahayn inay kala maarmaan marka isu soo dhaweynta mar walba la isaga dhawaado labada dhinac ay isaga dhawaadaan inay isla gartaan qolada sharciga iyo nidaamka ilaalin lahayd dhowr lahayd soo saari lahayd iyo kuwa shaqada tooska u qabtaba mar walba la isaga dhawaado waa mar walba horumar ku soo dhawaado marka runtii kalama maarmaan nuxurka dooda iyo tiimka hadda aan ka hadlayno ah saameyn intay leebi ku leeyihiin waxaan ku soo koobayaa tafaasiisheeda haba dambeysay saameyn waxay isku leeyihiin aad u ballaaran haddaysan wada shaqayn ka dhaxeyn waxaa adkaanaysa in sector kastoo ka mid ah ama isgaarsiin ha noqdo ama kuwa kaloo la midka ah oo nolosha asaasi u ah inaysan horumar lagu gaarayn marka sidaasaan runtii waxaan goobjoog u ahayn u soo taagnayn waayarag u ahayn waxa laga heli kara markay wada shaqeeyaan oo faa'iido ah ama wada tashadaan iyo waxa dhici kara markaysan wada tashan oo mid walbana sectorka gaarka ah inuu fahmo inuu isagu filan yahay oo maskax ganacsi kaliya ay hor timaado halka kuwa kale ee publica ka shaqeeya ama danta guud iyo dawladana ay u arkaan inay iyagu yihiin dadka wax wanaajin kara kaliya marka in isfaham inuu jiro aysan kala maarmin ayaa nuxurka saxda iyo maaragtay dareenka dhabta oo labada dhinacba ka jiro oo waayarag unahay iyo muujinaya okay su'aal aan si daba socodsiino hadda waxaa la ansixiyay sharcigii isgaarsiinta 2017 waxaa sidoo kale la sameeyay hay'adii nidaaminta ama hay'adii maamul lahayd isgaarsiinta qaranka ayaa la sameeyay laakiin wali waxaan maqlaynaa dood ka taagan qaab maamulka sidoo kale maanaha saameyn in hay'adihii gaarka loo leeyihiin ay galangasho ay rabaan inay ku yeeshaan banaha sidii hay'adda u shaqeyn lahayd sidoo kale maanaha waxaan maqlaynaa in ay shirkadihii gaarka ay ka dacwoonayaan leeyihiin dawladdii saameyn ayay lagu leedahay soo marka doodeena waxaan rabnaa intii hore waa isla fahamsanahay wixii lasoo maray laakiin midda hadda taagan waxay tahay muxuu noqonaa marka horta doorka wasaaradda muxuusan noqonaa doorka shirkadaha ganacsiga muxuusan noqonaa xiriirka labadooda ka wada dhexeeya ilaan hay'addii nidaaminta la sameeyey hadda waa la sameeyey sharcigi waa la sameeyey waa mahadsan tahay xiriirka ka dhexeynaya hay-adda masalan dawladda iyadaa dawladdu waxay u qaybsan tahay qayb siyaasadda sectorka ka shaqeysa oo sida wasaaradda oo kale nasiib wanaag sharciga waa la meel mariyey haba jiraan habacsanaan iyo waxyaabo badan oo aan dadku ay aad u fahmi karaan
oo sixidna u baahan laakiin maadaama dowladdu ay kaalinteedu ahayd kow inay siyaasadaha sektorkaas lagu dhaqaayo ama lagu dhaqayo isgaarsiinta ay meel mariyaan waxaa la sii sameeyey hay-ad gaara oo si toosa ula falgasha shirkadaha ka shaqeeya isgaarsiinta waayo dowladdu iyadu shirkad ma laha adeegii ma qabato sida waagii hore ay ahayd oo ay taleefanada iyo adeegyada kale u qaban jirtay hadda gacanta waxay ku jiraan waana wax runtii dhaqaalahana u fiican kobaca wadankana u fiican ganacsatee haya shirkadahaas hay-addii la shaqayn lahayd oo masalan hay-adda isgaarsiinta qaranka oo kale way dhisanta laakiin arrinta aad tilmaanto oo ah marar qaarkood kala duwanaanshaha fikirka iyo marar qaarkood sida siyaasadaha loo meel marinayo iyo buuqa taagan aan la socoto in meelo badan laga soo saarayo qoraallo marar qaarkood isdiida waxay ku imaanayaan waa ciladii horaan ka sheekeynayna oo ah mararka qaar in uu yaryahay in la tashado consultationka iyo wadatashiga iyo wax isfahansiinta yaa marar qaarkood waxaad moodaa inuu uusan gaarsiisnayn heerka la rabo waayo markii aad adigu maamul iyo siyaasad dejinta aad qaabilsanta haddaadan siyaasadda aad usoo daadejin suuqa siyaasaddaas lagu dhaqi lahaa dad ka shaqayn lahay oo awoodda lahaa oo wax qabanaya ummadda wajahaya haddaadan siyaasaddaas meelmarinteeda aadan kaa hadlin ama aadan meel isla dhigin waxaa adkaanaysa oo ay noqoto keliya hadda authority-gan hayaa marka shuruuc baan gudbinayaa keliya waxay keenay isfaham darray keeni waxaan isleeyahay marka meelaha ugu hadda ugu runtii khilaafka badnayd ama laysu diidanaa waxay u badan yihiin wax farsamo u badan iyo isfaham waana wax laga gudbi karo haddii aan la helin laakiin waxay keeni kartaa in horumarkii la filayo uu dib dhac ku yimaado marka kaalinta sektorka gaarka runtii aaday muhiim u ahayd haddii aanan shaqooyinka hadda la qabtayna ma qabsoomeen haddaan waxaan xasuustaa 2012 bay ahayd aakhirkii macnaha horaanteedii January yaa si sharcigan maanta la baasgareeyay macnaha sanadkii lasoo dhaafay la meel mariyay sanadkii sii horreysaan ka wadaa inuu hirgalo waxaa kasoo shaqeynaya intaasoo hay-adooda waxaana u adkayd inay dadka ku qanciyaan in sharcigana sharcigooda uu yahay sharciga wax kala nidaamin lahaa yahay sharcigii iyagu ay xuquuqdooda ku kala heli lahaayeen iyagana maalgelintooda ilaalin lahaa si biri ka maalin haddaysan qolo kale dusha uga timaado aysan hantidooda u boorin marka waxaan kusoo koobayaa midda ku saabsan in sektorka uu horumaro mar walba waxaa shardi u ah waana waajib runtii aan arkaayo dastuuri ah oo markaad akhriso xilligaas aan runtii ka shaqaynayno aad u fahmaysaa dowladnimaduna waa waajibaadka dowladdii ka mid tahay inay muwaadinka ilaaliso xuquuqdiisii isagu lahaa oo ah inuu ganacsado wax soo saaro ummaddu u adeegana waa middaas in lagu dhowro oo uu lagu ilaaliyo uu isaguna isku miisaamo waajibka iyo xuquuqdana waa mid la iska rabo marka haddii aan wada shaqaynaysan dhicin way adkaanaysaa laakiin inta hadda socoto runtii wax badanna waa laga shaqeeyay weli waxaa jira howlo badan oo loo baahan yahay waxaan gudbaynaa Axmed caymisku wuu tiro badan yahay waxaan rabnaa tusaale inaan u soo qaadano midka badanaa dadka hadda ay marka maskaxdooda kow kusoo dhacdo waa caymiska gawaarida intaanay dagaalada dhicin ka hor waxaa jiri jirtay hay'adda caymiska qaranka ayada maamuli jirtay wax alaale wixii caymiska ah hadda intaan ognahay wadanka ma jiro sharci dhahaya ilaa gaari lama kaxayn karo ilaa uu caymis uu ku jiro idinkana waxaa ka shaqaysiin caymis marka waxaan rabnaa marka inaan noo sheegsiino marka hore doorkiina idinka aad leedihiin iyo doorka dowladda ay leedahay marka hore inaan noo sharaxay bismillahi rahmaani rahiim horta shirkadda Visa Takaful waa shirkad caymis oo private san aan ognahay waagii hore dowladda Soomaaliya ay jirtay wadanka waxaa ka jiray shirkad caymis oo dowladda ay leedahay oo ma jiri jirin shirkad private maadaama waxay burbureen dowladda loo soo laakiin waxa dowladdii ayaa meeshii waxay taagan tahay meel dhexe oo ah in iyada ayaa haysa sharciga dalka iyo qaabka wax loo horumaray shirkadda waa shirkad gaar ah ee diyaar u ah in ay caymintii ay qabato adeeg ahaan laakiin dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa intii caymiska aan la qabanin in laga helo qaanuun dhahaya gawaarida dalka waa in la caymiyaa taa markii ay noqoto mataqaana mid dowladda xaggeeda ka timaado ayaa caymiskii dalka ka jiray markaas waxaa bilaabanaysa mataqaana gawaarida in la caymiyo laakiin ilaa hadda weli arrintii waxay ka cagajiyeysaa xaggii dowladda inkastoo ay jiraan howlo socdo oo ay World Bank oo ka mid yahay qaanuunka la diyaariyey haddana weli meeshii la rabay in barnaamij la geeyo oo la abruureeyo oo wixii ay bilaabeen weli lama gaarin inta arrinta ay hakad ku jirtana waxaa caymis la'aanta waa jiraysaa inkastoo hadda ay jiraan howlo badan qabano aan geesa ku leh sida mataqaana travel insurance waa sameynaa cid kastoo hadda mataqaana wadanka oo visa doonata waxaa lagu soo xiraa la imaado
maxaa lahay travel insurance waa u sameynaa dadna waxaa jira dad waxaa jira dibadda ganacsiga mataqaana markii ay contract ay galayaan marka la mataqaana imaada insurance taasna waa sameynaa laakiin muhiimada waxay tahay tii gaadiidka mar kasta waxaana laga maarmaynin in dawladdii xaggeeda ay kasoo baxay sharci oo dhahaya waa in gaadiidkii la ceymiyaa in gaadiidka la ceymiyaana dan waxay u tahay dadkii ganacsatadii iyo wixii mataqaana isticmaalaya gaadiid maxaa waxaa waaye gaadiidkii markuu wadada maraayo wuxuu ka galaa shil ama isaga laba gaar isku dhacdo ama qofka ku dhaco haddii marka aysan jirin qaanuun kala saaraya yaa gardaran yaase mataqaana kharashkii jugtub oo dhibaato adkanaayo waxaa waaye dadkii dhibaa gaaraayo gabadhii dhibaa gaaraayo inkastoo hadda zamankan ay dowladda ay maqneen ay jirtay xaal mastuur dadka markay meel ay degan yihiin oo ay isku dan yihiin wax kastoo dhaca dhan baa loo xaleeyaa nidaam waxaa jira madani dadka ay samaysteen dadka gaarada wata iyo dadka isku dhacaan laakiin hadda kii waxaad moodaa in xoogaa culeys sii noqonayo marka dowladda la rabay in ay xoogaa ay soo hormarto oo ay isku daydo in qaanuunkii caymiska ay dedejiso si hawshii ay u bilaabatay laakiin shirkadii caymiska ay fiiso tagafur diyaar waa waxay u dhan yihiin laakiin xaggan laga helin mataqaanaa caymintii sharcigiisa waa la ogolaaday oo dowladda xaggeeda wax soo dhamaaday xoogaa hakadka waa jiraya marka arrintan aad tiri culeysaa ka imaanaya dadka hadda sidai ay u tacaamulaan ka soo qaata hadda magaalada muqdisho gawaari badan aad joogto oo noocyada kala duwana dabcan shil wuu ka dhacaa shil badanaa dhaco ama qaarna dhimashay keenaan qaar dhaawacay keenaan qaarna hanti inay burburtay keenaan marka idinka maadaama aad private sectorkii aad tihiin oo shirkadihii ka faa'iidi lahaa haddii ay dowladda ay soo rogto sharci noocaas hadday soo rogto marka dadaal ilaa intee la eg aad isleedihiin shirkadaha goonida loo leeyahy way ku jiraan inay dowladda ku qanciyaan inay mowqifkaas qaadato dowladdii waxaad moodaa maba diidana in ay wixii la dhamaystiro mekanismkii dowladda mataqana si rabaan u shaqaynayay wixii waxay mataqana talaabaya gaaban laakiin waxaa dowladda waxaa maalmahan dambe gacansar ay World Bank oo arrintan mataqana ka saacidayay in la geliyo kharash la geliyo aqoon la geliyo sidii mataqana loo helayo mataqana ila adduunka moogtahay markay noqoto caymis Soomaaliya caymis mataqana moogtahay adduunka waxaa Kenya waa laga caymis Uganda America Canada everywhere waxaa jira caymis ajiro laakiin caymiska marka wuxuu qabaa standard oo aan kala fogeyn marka qaabka in la mariyo unba hadda socoto mooge markii waxay dhamaadaan qaanuunkii lagu heshiyo waxaa laga golaha wasiirada kadibna waxaa laga baarlamaanka akhritaan wuxuu noqon doonaa qaanuun hirgala laakiin tiyaa weli hakad ku jirto waa ognahay oo ka warqabnaa maadaama magaalada gaayadkan ay badan yihiin dadkan ay badan yihiin maalin shilaa dhaca laakiin shilkii dhacay labadii qof waa haysta bas iyaga unbaa mataqaanaa hooy go-aan hoos la gaaray iyagaa mataqaanaa qaabkii wax isu sii lahaayeen iyo qaabkii u heshiiyeen iyaga unbaa samey laakiin cid third party ma jirta mar hadda waxay timaadaan nimanka traffic police inay yimaadaan mataqaanaa wixii ay hagaajiyaan laakiin waxaa shay bilow waa weli maxaa dhahay haddii caymis ay noqoto inuu mataqaanaa u dhaqan galo kuwa waxaa kamid ah in la soo celiya qaanuunkii traffic la soo celiya wadooyinka in la calaamadeeyo in la taaga tabeelooyinka la taaga meesha la mari karayo meesha la mari karayo meesha xiran wixii dhanba weli ma bilaabanima marka waxyaala badan mataqaanaa oo mataqaanaa ku sameynaya complement caymiska hadda nafta weli lama qaban taas iyadoo bahdo waqti u baahan doonto la yidhaha okay waa mahadsantahay waxaan u gudbayaa ablaal dhowaan sidaan la socono waxaa laga soo baxay xilliga imtixaamiyada dood badan ayaa ka imaaday doorka ay leeyihiin qaabkii loo maamulay imtixaamaadka su-aalo badan maanaa dad waxay doodooda ku saleynayaa in dowladda aysan xaq u lahayn dowladda kaa xaq u lahayn runtiina macnaha muddo dheer waxaa gacanta ku soo hayay shirkadaha goonida loo leeyahay NGO-yada ayaa dadaal badan runtii waxbarashada soo geliyay hadda laakiin waxaa soo muuqda doorkii dowladda marka fadlan waa jeclaan bal inaad noo ifiso xiriirka ka dhexeeyo waxbarashada dhexdeeda xiriirka dowladda ka dhexeeya iyo jaamacadaha ha noqdaan ama iskuulaadka ha noqdaan ama daladaha ha noqdaan xiriir ka dhexeeya okay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام أولا السلام يا وسيرة سعيد تعوين أحمد لك اللي أحمد برشاور هاي السلام يا نحن ورطة إن ديبر اللابتو إن وحبر الشدة طبعا صاد شاكتي وحاب حنشري حلي جي هورك أو دلكو أو دولة لها dhammaan waxaa bixin jiray dowladda ha ahaado laga bilaabo kindergartenka ilaa jaamacadda dowlad baa bixin jirtay dowladdii markay burburtayna waxaa dhashay waa ma istaagay dhammaanna wixii waxbarashada waa istaageen nooc kastay taa istaagay waad mogtiina ka maalin jiray xilligii hore waddanka iskuullo badan ama hay-ado badan oo aan dawli ahayn oo waxbarashada ka maalin jira marka waxbarashada istaagtay dhammaan
oo dhallaanka soomaaliyeed oo suuqa soo dhacday waxaa dhacday wax la is-abaabul bulshada way is-abaabushay isku tashi saasna waxaa ku dhashay in iskuulo la abuuro nooc kasta iskuulladii waxna qaadaan dad badan ay fursad waxbarasho ka helaan kabacdana jaamacada loo gudbo oo arday dugsiga sare ka baxday laga fikro in loo abuuro meel ay waxbarasho kasii wata waxaan rabaa maraan reportkan akrinayay waxaan arkaya privatization waxbarashadii inay laga dhigay privatizer laga dhigay oo loo wareejiyey lahaansho gaar ahaaneed oo laga soo wareejiyey eriga saasuu keenaya lahaansho guud ahaan laga soo wareejiyey waxaana inaan qofka reportka akrinaya inuu ogaado inaanay jirin wax hab systematic oo habaysan oo from public ownership to private ownership lagu soo wareejiyey waxaana ay ka dhasheen firaaq dhashay oo aan cidna aanay xukumaynin maana way privatization wax abaabulan oo habaysan oo nidaamkiiba waxa dawladdu haysay in loo wareejiyo private loo wareejiyo iyadoo dan loo arkayo ama horumar loo arkayo waxaa dhacda wax dad hayeen in loo soo wareejiyo dawladda oo laga yaabo xilli gacan ka horan jireen iskuullo iyo institutions oo waxbarashada bixiyo oo private laakiin gacanka markuu dhashay dhammaan laga dhigo wax dawladdu leedahay marka waxbarashada sababteedna waa ka duwan tahay ma og tahay waa ka duwan tahay ganacsi caadi ah iskuullada ama hay-adaha wax lagu bartaa ma ahan dhammaan kuwa kor shaqeeya lacag ma waxaa jira iskuullo badan oo ama institutions fara badan oo community based ah oo aan wax lacag laga qaadan kuwa ay abuureen dad dibadaha ka soo laabtay oo u arkay inay muhiim tahay inay bulshada wax ku soo celiyaan marka oraahda oranaysa iskuullada iyo jaamacada dhammaan waxaa ku haya maxaan ku radaa dad oo lacag ka sameynaya meesha sababta waxay u baahan tahay in dib loo qaabeeyo oo dib loogu laabto waxaa laga yaabaa kuwaabta waxa shaqeynaya waxbarashada inay yihiin iskuullo bulshooyin ay leeyihin community ay samaysteen ama ay sameeyeen dad muxsiniina ha ahaadeen kuwa soomaali iyo kuwa aan soomaali inta ay sameeyeen meesha waxay u baahan tahay inaan iskuullada dhammaan jira aan u dhalanin in lacag laga sameeyo in badan oo ka mid a ay u dhasheen in bulshada lagu taakuro horta meesha in la ogaado aad bay muhiim tahay in la ogaado oo xiboorada marka la qorayo ee qofka akrinaya inuu si fiican u fahmo ii sheeg waxa dhan inaan ahayn maxaan ku radaa khibaro badan oo laga diyaar waxbarashada waxay muujinayaan xitaa kuwa private lagu tilmaamaa inaan ahayn meelo lacag laga sameeyo ay sifada ay yeelan karaan community schools ay yeelan karaan warbixino badan hadda world bank uu ka wara jiraan malayna waxbarashada aad loogu kordho markan taas ka soo tago backgroundkaas dabcan system ama meel uu ka jiro firaaq dawli ah oo aan waxba ka jirin waa ka duwan tahay meesha ay dawladda ka jirto waxaa laga maarmaan ah dadaalka bulshadu ay samayso qeybaheeda kala duwan ama nooc raba ha ahaado waa inuu jiraa cid regulatory body oo wax qaabaysa waana jiraan dadka qudhooda in la kala celiyo u baahan yihin dadka qudhooda waxay u baahan yihin in mid walba dariiqa uu leeyahay la qaadsiiyo in la ogaado dawladdu waxa ay leedahay iyo dadku waxa ay leeyihiin dabcan wax maaha dadku inay waxbarashada ka shaqaystaan inay qeybaha kale ka shaqo wax maaha laakiin waa inuu jiraa system regulatory oo qof walba meesha uu ku leeyahay shaqada la muujiyo suuragal maahan dabcan mana filayo in hadda ka hor ay dhacday in ilaa waxbarashado ay dhahaan anagu dawladda ma naqa ma dhe waxay u baahan yihin nidaam ay u baahan yihin waxay u baahan yihin laakiin in nidaamka ay participation ay ka qayb qaataan maadaama xeerka uu saameyn ku yeelanayo saada dadweynaha loola wadaagaya constitutionka oo leeyahay codkiina ka dhiibta oo kii lagu dhaqi lahaa dabcan xeer hoosaad kasta oo sector gaar nolosha ummadda macnaha taabanaya ama dad xirfadleya taabanaya dad marka la dejinayo waa inay ku leeyihiin waa inay ay maxaan ku rahdaa aragtidooda waa inay ka qayb tahay si aad sheegtay waa sax in oo hal dawladda xoogana soo aragno ahayd gacaankii oo everything belongs to government dawladda wax walba iska leh mentalitygaasi weli ma dhiman waayo meesha keliya hadda laga qarin daaranaya waxay soo jirtay ma dhiman mentalitygaasi oo waxaa laga yaabaa de wasiirada soo haydeen oo de kulley xiriirka hadda dawladda nagala dhexeeya waa marka wasiirada idinkala dhexayn jiray dadka adeegyadii oo aada qaban lahaydeen oo hadda privatanay kaas oo kaas kama dheer laakiin marka laga tago inaan systemiska lagu maamuli lahaa ama lagu xisaabtami lahaa aanay horumarsanin marka laga reebo
waxaan isleeyahay wax weyn oo caqabada oo waxbarashada hay'adaha waxbarashada maxaan ku idhahdaa aan dawliga ahayn iyo dawladda ka dhex jira ma jiraan laakiin mumkin inaan xeerarkii lagu tacaamul lahaa wax lagu wadaagi lahaa roles and responsibilities-ka lagu qaybsan lahaa inaana weli well developed ahayn ay ku jiraan process ay ku jiraan ay socdaan waxa dawladdu leedahay dee dadka aqoon-yahana way garan karaan laakiin waxaa laabudda ah marka oo xeerku qormaayo waa inaad codkaaga waa in lagu maqlaa haddaan lagu maqlin waa lagaa booday waxbaa dhiman okay waa maasanta waa kugu soo laabanaynaa saaxiibkii aan gudbayaa qorshayaal tan maanaa dee soomaaliya waa waddan muslin ah tegitaanka xajkana waa waxyaabaha ugu muhiimsan qof muslin ah uu intuu nool yahay uu gaaro ay tahay gaar ahaan dadka soomaaliyeed markii ay dhacday colaaddii ay dowladdii burburtay ilaa iyo hadda si kastoo duruufaha u adkaayeen waxay aada ugu dadaali jireen in sanad walba ay tagaan xajka dad baa ku dadaalay runtii inay soomaaliya u suurtowda duruufahaas adag ayagoo jiraan inay xajka tagaan hadda waxaad u malaysaa in doorkii dowladda uu soo laabanayo dowladdiina ay rabtay inay saameyn ku yeelato qaabkii loo maamulayay sidoo kale wasaaraddii oo diintii oo qaabtay saameyn ay ku yeelato qaabkii xajka iyo cimrada loo aadayay marka sidee u aragtaa waa aragnimadaada xiriirkan hadda cusbaanaya ee qaabkii hore ka duwnaanaya ee ka dhex abuurmi raba wasaaradda ama dowladda aan dhahno iyo shirkadihii diyaaradaha gaar ahaan ee aada kugu shaqeynaya arrimahan xajka bismi illahi raxmaan raxiim marka hore gaar ahaan waxaan rabaa inaan salaan aan idin soo jeediyo institutekiina runtii wax loo baahnaa kaalin maqnayd inay buuxisaan weliba aada u firfircoonoo runtii maanta tan la keentay halkan ay ka mid tahay sida soomaalida wixii dhinnaa qolo walba kaalinteeda ay buuxiso salaanta waxaan ku darayaa asxaabta ila fadhida oo dooda maanta halkan aan ku wada jirno waxaan kaloo iyadana rabaa inaan u mahad celiyo tv-ga tusmo oo isna ina siiyey fursaddan aan maanta halkan aan fadhino meesha quruxda badan intaa haddaan ka gudbo waxaad moodaa run ahaantii anigu kow waxaan leeyahay dadkan soomaaliyeed oo haddii la yidhaho xagga private-ka public haddii laga tago haddaynu dib u noqono 9 sano oo xilligii koobnaa oo dowladdii hore oo maanta magacyo badan bay lahayd doorasho wax ku yimi oo xaq ahayd ay iyada ahayd wakti yar oo kooban ayay ahayd adduunkuna markaa soomaaliyana xornimo ay qaadatay isku cusbay dad badan oo wax badan oo markaa aanay jirin aqoontu iska yaray wax lagu shaqaynaya iska yaray waxa yimi kacaankii oo isna muddo dheer oo sida walaalkii hadda uu sheegay carbaar oo kaleeto in wax walba ay la wareegeen dowladdii ay noqotay wax walba dowladdan ay leedahay waxbarashada hadday noqoto caafimaad hadday noqoto maxay ahayd dhaqaalaha waad ogeeyeen baanankii inagoo joognaa habeen qodha bay baanankii wixii banki waxa jiray tinaani oo shirka baanak badan ku lahaa masaarada ku lahayd waa lala wareegay baa leeyahay habeen keliya waxay noqotay marka wax dowladda maaha wax anaani jirin taasaa marka waxay ka halkaan oo aan aragtida ii muuqato waxay ahayd waktigii aynu lahayn oo badnaa waxaa lagu dhumiyey xilli wax walba ay dowladdu leedahay waktigii laga bixi lahaayo dadku waxooda iyaguna qaybtooda ay keeni lahayna burburkii baa la galay maadaama burburkii la gala haddana halkaa waxaa dhalatay su-aasha imaanaysa la isu geenaya dadkan private-ka kaalintooda ma ka soo baxeen xaalaa leeyahay waa ka soo baxeen waana ku mahadsan yihiin ummadda adduunka waa ka harnay waa baabcabayn aan lahayn meeshii la odhan lahaa waxbarashaa la sameeyey haba iska liidato niman aan helayn mucaawano helayn jaamacadda qaranka waa ogey dowladda laaniga fangaranaysa hadda nimanka yaa fangaraya jeebkoodan bay ka socdeen runtii waa la qabaa anu kelmadahan qaarkood markii la isticmaalayo oo kale in laga fiirsado isku mid maaha jaamacado waaweyn baa jiraan intaan ogahay oo weliba dibadda magac iyo sharaf ku leh hadday halka baxaan toos loo qaadanayo iyo kuwa dee meel walba meel yar ka furtay oo magacii la wadaaga ayaa waxa keenaya moogta inay dadkii magaca ka wada khridaan taana waa waxaa looga baahanya dowladnimadu inay u samayso nidaamkii lagu kala saar lahaa oo wax lagu kala qaybin lahaa marka haddaan gudagalo su-aasha ay weydiisay aad ugu mahadsan tahay
أنا هلكا waxaan ka arkaa in kaalin walba culimadu waxay lahaayeen shirkadaha dowladda waxay lahaayeen ganacsatada lahayn inay buuxiyeen kaalin maqnay xajku runtii meel wax laga doono maaha waa meel cibaado waa meel ummadda la rabo maarta qofku inuu dembi dhaaf uu ka helo xilliyada taariikhii hore aynu ogeynoo Soomaaliya dowladii waxba aanay jirin dadku waa safri jireen lug baa lagu tegi jiray hadda wixii baa laynoo soo dhaweeyey rag baa inoo keenay dowlado insurance soo geliyey ragga markaa u tegay dowladihii magaranaysa dowladda Sacuudiga la macaamilay oo yiri anaga dadka keenana meelana dejinayna waxaan rabaa inay kaalintaas oo kaalin buuxda ay buuxiyeen wixii markaa waxaa hadda aan u maraynayaa inay kala yar hor dhacday dowladdii oo soo daahday xilligii dowladda la rabay in la dhiso dowladda waddanka oo dhan la wareegi lahayd iyo systemkii private sectorskii oo xooggan oo shaqaynaya oo dowladihii leh oo iyagu xajka meelihii la geynaya leh oo dhowr iyo 20 sano soo maamulay iyo dowladdii hadda tiri anna way kan waa imi oo wixii la rabo in markaa lala wareego waxayaan markaa xoogaaga yaroo isfahan waag wax ka dhanaya dowladda awoodda ay ku lahayd ayaa meesha hadda kow soo caga dhigatay timo okay meesha waxa la rabo marka dowladdu sida shuruucdii baarlamaanka meelaha la geeyo wixii xaq ay dowladdu leedahay inay hesho wada dowladda aan meesha lama jiri karo dowladda la shaqeynaysa wax kala hagayo sharciga kala dadka kala xanibayana waa dowladda wey dowladdu marka waxayaan iyadu waqtigeedu inay systemska ay sameynayso marka horeeto waa iska sameeyay kaliya waa laga fiican yahay inay u sameyso wax daraasad la sameeyo ama inay la tashato ama arrin kale oo anu ma aaminsanin dibaddan wax laga doonayo ama leeyahay maanta waxaa soo hadlay maxay ahayd safaarad hebel iyo urur hebel oo arrintaa inagu cambaareeyey inaynu iska dayno inuu tashano ayahayna ka tashano marka anu tan xajka waa arkay in sanadkii hore xoogaa la furay haddana sanadkana aada loo ballaariyay la furay isla mar ahaantii waxaa ka maqan meesha Soomaaliya waxay lahaan jirtay transport u gaara oo ilaa 63 oo Soomaaliya la oran jiray oo iyadu awood u lahayd inay qaado dadka geyso soo noocaysa awood fiican maaragtay runtii buuxinta kaalintaas waxaan moodaa maaragtay kaalintaas inay buuxiyeen private sectorku tii dowladdu markaa weli aanay imaan aanay sameyn duruufo jira aawadood ama dhaqaalaha ku kalifto ama burburka macnaha hadda Soomaaliya waana noqon in dowlad wada tiraha waa nuseen inta dowladda wada ku shaqeysta marka xajku runtii xaaladiisu aan waxaan qabaa way fiican tahay stage fiican ku jira meesha marka la tagayo xajka la tagana Soomaalida waxa la yiri waxa nimankii xajka Sacuudigu iyaga wax soo saaran wax koota la yiraahdo kootada sanadka waxay yiraahdaan intaas saaran maaragtay dowladda siin hadda markii xaramka uu dhismo ka socday way joojiyeen baa xajirtay 4 sano 5 sano ka hor 1500 bayrahan baa kaliya loo ogol yahay in Soomaalidu ay sanadkan soo xajiyo 1500 marka Soomaaliya aad u eegtay ma wada buuxin karto waxaan waasan in yaro kooban dowladuna markaas soconayay runtii waxay ahayn daal iyo jibba kaliya ahayn runtii wana nimanku aad u shaqeynayo fiican bay ahayn qofka haddii uu hawl fiican hayo waa loo baahan yahay in tartan uu galo oo lala tartamo iyaguna lagu biiro laakiin sida la yiraahdo maaragtay iyaguna yarahan anagu baa meesha ka shaqeynayna gabdhahay walaal kale yarahan nimanka laga saaro maaragtay nimankaas kuma fiicna inay hawsha qabtaan xogaa halkaas oo moodaa dadka u garqaaday wasaaradda waqaafka diinta ayay ahayd sideeda xataa wasaaradda gaadiidku markii xajka noqoto wax shaqo ay ku leedahay inteeda badan ma laha waxaa yaabaa inay wasaaradda waqaafka iyagu ay xajka tagaan la soo dhamaystaan la soo noqdaan inta tartanka galaysa inta baxaysan iyagu markaysan marka waxaan waday hadda sanadkan markii dhismuhu meeshii uu dhamaaday xajkii dhamaaday oo maaragtay xaramkii uu diyaar garoobay in haddana laynoo kordhiyo kor loo soo qaado waxaan yani 11,500 ay hadda tahay marka 11,500 waxaa loo qaybiyey dhowr iyo 50 shirkadood hadda loo qaybiyey kulli waa ka qayb geli kartaan 100 mid la siiyo 100 la siiyo iyo mid kun la siiyo bay u qaybsan yihiin marka xajku waa meel cibaado loo tagayo meel ganacsi loo sameeyo lagu tartamayo ma aha
dowladduna xaq bay u leedahay iyaduna inay regulate garayso inay dadka ay wixii nidaam bisharad dadka lacagta laga qaadayo inuu isnaandar la yahay adduunka intiisa kale gaar ahaan darisyada dowladaha dariska aynu nahay waxa lagu qaadaya ma yihiin wixii sax ahaa waa mid wixii lacagtay ku qaadeen ma yihiin meeshii la geynayo meel ku habboon hoteeladii seexin lahaa transportka qaadan lahaayeen dowladda markay ka degaan sida ummadaha kale calamay taagtaan hore ka galaan waa xujaajtii dalhibel ka timi inayna ictiraaf kala helo oo inaguna sidaas aynu ku socono oo la oran waa soomaalida xagga dhiga oo inay ku jiraan 6 saacadood 7 saacadood cirbeed ku jiraan waxaasoo dhan baa rabaa dowladda inay ogaato ay qolada ay siinayso kolley sanadkii dhowaa aad iyo aad bay dowladda runtii soo bandhigtay in isbedel ka dhacay markuu koobnaa iyo markii la ballaariyey marka waxaan rabaa arrinta xajku waa arrin runtii xasaasiyad ah laakiin in laga daayo inay ganacsi noqoto ay noqoto goor cibaado dadkuna jabkooda waxay bixin karaan laga dhigo wax kooban oo wax ciido badan laga raajo laga saaro intaasaan ku soo waa maasantahay haddii la marka doodeena waa furanaynaa maanaha qof waad soo dhexgeli kartaan manaha ma aha waxaad malaysaa in laga aada ereyga looga wada dhawaajiyo dowladda inaysan la tashi badan samayn laakiin waxaan ognahay hadda markii lasoo diyaarinayo sharcigii isgaarsiinta oo kale in horta dhowr sano uu qaatay in la diyaariyo la tashiyo badan la sameeyey dalka gudihiisa qaar lagu qabtay qaar dalka banaankiisa lagu qabtay sidoo kale baarlamaanka inuu waqti dheer uu sharcigaas uu agyaalay ay ka shaqaynayeen marka haddii la yidhaahdo marka lama tashan maanaha waxaad u malaysaa marka qaabka loo tashtay ayo aad maskaxda ku haysaan ayaa ka duwan midda ay dowladda ay ula tashto maana maxay tahay tashigaan la sheegaya maqan ee leeyahay lalama tashan shirkadihii gaarka ama daladii waxbarashada ama hayadii waxbarashada maana tashigaa maqan dowladda aysan waxba la tashan ama maanaha wadadii ku habboona tashi uu maqan yahay marka siduu noqon karaa waa xaqiiqo horta in wadatashi marar qaarkood sektarada qaar ka dhaco gaar ahaan isgaarsiinta iyo teknolojiyada haddii aan shuruucda markii loo sameynahay taariikhiyana mar alla markii sharcigu bilowday ama xukuumadii ugu horreeyey waddanka soo maray waxay bilaabeen inay wadatashi sameeyaan laakiin ulajeedada iyo wax walba waxaa ugu muhiimsan natiijada masalan haddii wadatashigu uu noqon waayo wadatashi si dhaba in loo wada fariisto xaqaa'iqda jirta la baaro dhibaatooyinka jira la darso dadkii adeegka qabanayay sida dowladdu ka hadlayay fursad loo siiyo inay dareenkooda cabiraan la fahansiiyo meelaha ay ka qabaan su-aalaha ama waxyaabaha ay cabsida ka qabaan saa waqti iyo dhaqaale iyo aragti isxilqaanba ha ahaato ama runtii is-abaabul gaaraba ha ahaato yaa waxa lagu keeno laga yaabo ereyada qaar inay kala sii maalgelinta iyo xagga dhaqaalaha ay kala duwan yihiin waayo tusaale ahaan hadda isgaarsiinta oo kale waa adeeg runtii capital maaragtay incentive ah dhaqaalo u baahan aada u fara badan waxaana la qiyaasaa laga bilaabo aakhirkii 90-meeyadii ilaa iyo 2010 markii la gaaray ilaa iyo lacag gaaraysa half a billion ilaa $500 milyan ka badan in infrastructure la geliyay dad baa marka hanti geliyey dhaqaale geliyey dadka marka waxay intooda badan maskaxda ku hayeen ummaddan inay u adeegaan dabcan ganacsina way ka ahayd waxaa kaloo private sector markii laga hadlayo dabcan noqon kara waxyaaba aan xataa ganacsi ahaan ahayn xagga horumarinta iyo laga yaabo adeegyo kale oo xataa teknolojiyada ay soo raacdo marka markaasoo kale wadatashigaasoo kale haddii marka dhinacyada ka mida uu masalan u fikiro in si loo processkii loo hagaajiyo wadatashiaan samaynayna maalin baa lasu yimid xaflad baa la sameeyey hotel baa lagu shiray tabeella la dejiyey waxaa la yidhi shirka wadatashiga 2 maalin la shiray waxaa laga yaabaa inaanan si macnaha dhaba loo wada hadlin ama dadkii concernkoodii laga qoro kadib la kala tago lagu soo qoro ama lasoo daabaco ama warbaahinta ama publica loo sheego in arrintan laga tashaday laakiin natiijada ay wax kala noqoto wadatashiga si serious oo dhab aan loo gelin macnaha marka meelahaas muddo horta meelaha ciladaha ugu weyn oo laga yaabo dadku hal isla tashadaba inay soo noqnoqotay taasaad moodaa inay sababayso sababtoo ah wadatashiggii baan aan gaarsiisnayn heerkii la rabay in loo tashado dadka qaar saasay ay qabaan dabcan mid kale way jirtaa oo maadaama waqtiguna kooban yahay oo haddaan hadda dhinac kaleba u hadalno
maaha keliya privateka iyo publica waa tii guuda waxaa laga yaabaa in factorka oo time waqtiga inuu muhiim yahay badanaa hay-adaha dawliga ama dowladda waxaa laga yaabaa in qorshahooda uu inta badan qorshe ama siyaasadeed ama barnaamij xukuumadeed oo waqtiyeysan inay rabaan inay howl qabtaan oo laga yaabo 1 sano jooga 6 bilood waxaan rabnaa inaan sharcigan meel marnaa ama 3 bilood laakiin hawshu waa 3 sano soo socotay 20 sano marka aad inuu u riixaya laga yaabaa hay-aduhu riixayaan halka dhinaca kale ay ayagu riixidaas ay diidan yihiin marka dhinacaas laga yaabaa inuu ku eedeeyo dhinaca kale yiraahdo qoladan dib u dhac bay wada mar walba heer waqtiga naga lumiyaan heer dhinaca kale marka waxyaabahaas farsamada hoosa waa waxa la rabaa in dadku ay aad u fahmaan in shay walba waqtigu munaasib ku yahay in la siiyo wada tashigana marka hore la isla qeexo area ama waxa ay tahay laga wada tashado si guula looga keeno marka halkaas ku imaanaya waa doodan uu jahwin soo jeedinayo waa maqlaysaa uu leeyahay mana sharcigii hadda ka tusaale ahaan isgaarsiinta muddo dheer ayuu wada tashi ku jira baarlamaanka ku jiray oo uu soo socday laakiin haddana wada tashiga heerkii la rabay muusa gaarsiinayn marka idinka marka waxbarashada dhankeeda maxay tahay waa aragnimada arrinta aad ka dhawaajiso la tashiga maana sidii loo baahnaa aanu ahayn bismillah horta waxaan rabaa inaan mid caddeeyo moogtaa sida oo wasiirka jahweyn uu sheegay iyo wasiir qorsheed horta mid in la caddeeyo waa laga maarmaan hay-adaha aan dawliga ahayn adeegyada kala duwan ku haya gacanta ama ahaadeen caafimaad waxbarasho maxaan ku radaa isgaarsiin waxay ahaadeen ma filay inay jirto hay-ad diidan in system uu wadanka dhiso waxaa la rabaa horta kaasi waa maytays waxaan jirin oo khuraafaad kaasina horta meesha ka baxway awal horta marka horta waa in loo fahmo waxayna yihiin wax oo dadka dhexeeya oo nidaamka dawliga ah in muddaa maqnaan soo kabshiisa ay ku xiran tahay consultationka iyo la tashiga aan ilaado iyo maxaan ku rahdaa iyo daraasadda laga sameeyo waxaa la rabaa in loo qabto macnaha waxaa dhacaysa sometimes in ay tahay in la diyaariyo xeer noocan ma wuxuu raba ahaado laakiin ay tahay wax un project based oo dawladdu ama hay-ad maxaan ku rahdaa NGO caalamiya laga inuu fan ku bixinayo support waqtigiisuna uu leeyahay project life spanks waa gaaban yahay in inta la qabto shaqadaas markii hore soo afjiro halkaas waxaa ku lumaya wada lahaanshihii iyo muddadii la rabay in la geliyo daraasadii la rabay in laga sameeyo participation qayb qaadashadii maxaan ku raacay isnaqdintii isdhegeysiga consent jira in la dhegeysto qof oo maxaa laga yaabaa dhalinyaraha oo iskuul sameeyey ama hay-ad waxbarasho oo sameeyo kale oo aan dawladdii hore kabacdi xoogaysi waxbartay waxaa laga yaaba inuu sida war meesha waaba lagu dhacaya inuu sidaa wuxuu u baahan in la wacyigeliyo loo sheego inaan la dhacayn in wax loo hagaajinayn in loo sheego waxay u baahan tahay process bay u baahan tahay not wax maalin iyo labo iyo bil iyo saddex lagu soo eka process u baahan at the same time inay jirto dana deadline inuu jiraa xeerkaas ilaa ay tahay inuu soo baxo taasna waxaa go-aaminaya dawladda laakiin in waqti badan la geliyo ayaa laga hadlaya dadka waa u baahan yahay nidaam iyo kala dambeyn waa u baahan yahay haddii dee aan nidaam xeer nidaamyo aanu jirina wax kastaa marka dambe iyagaaba iska foor xumaanaya ugu dambeyn waayo waxaa soo fargelaya markii mid uu sameeyo jaamacad ama iskuul ama hay-adka waxbarashada taageerta ugu dambeyn waxaa iska dhalanaya kuwa aan maxaan ku radaa aan nidaamkii iyo systemkii la aan buuxinayn sida uu sheegay wasiirkan magacii wadawaago mugta aadayna ugu badan waxbarashada eriga marka ka hadlayno tayada habka shaqaylista dhalinyarta cag soo baxay waxay iska noqotay qof walba oo ka hadlaya waxbarashada inuu yihahdo waxbarashada taya mala at same time nobody oo intersect sameeyey cabiray tayadu intay dhan tahay in qof dabagalay ardadii inta ka baxday iskuullada ama jaamacadaha dibadda waxbarasho u tagay performance sigood kala ma jirto dhaqaalaha waddanka jira intuu shaqo abuuri karo cid daraasada ma jirto iyo dadka soo baxaysa isu qaadan karaan iyadoo laakiin waxay iska noqotay halays caam ah ka jawaab qof walbaa yidhahdo waxbarasho tayo ma laha yes waxbaa jira oo u baahan xeer nidaamyo inuu kusoo baxo oo wax laga qabto laakiin waqti badan lama gelin waxaana iska noqotay qofka xitaa qofka lay beersanka oo xitaa waxbarashada ku lahayn inuu yidhahdo waxbarashada waxmale waxaan ognahay haddii maanta laga samayn lahaa wadamada hadduu tagaan Asia ama Africa ama
meelaha kasii sarreysa takhasusada ay kala tagaan waxaa laga yaabaa in oo jawaabta oo maxaan ku qofka qaadanaya heerka tayada waxbarashada soomaaliya inuu mid ka duwan uu fikrada la imaan lahaa haddii little bit research laga samayn lahaa oo dabagal lagu samayn lahaa dabageli lahaa performance wado mamisa baagamuudada aa ku jirta maa bawarkiina badan roorkiina aqnaa moogtahay waxay ku xiran tahay in la shaqaaleeya dhaqaalihina meel shaqo abuuri karaa ya dabcan wax u baahan dadka soo baxaya jaacada ka soo baxaya iyo economic capacity intuu shaqo ku abuuri karo wax u baahan in la isku dheeli tiro oo xeedxeednaan kusoo baxay warmaya maadadan suuqa ha loo joojiyo kuwa horantiga waxyaalo badan wax u baahan dowladda loogu maarminaa jiray xeernaamyaha una baahan dabcan in si macnale loo daraasiiyo daraasad buuxda looga sameeyo intii eedda la saari lahaa systemka dhan oo ii sheeg tan kale daladuhu wasiirkii hadda warbixintiina ku jirtay ma filayo in lagu casilay culays oo ka yimid dalada iyo hay-adaha waxbarashada laakiin waxaa laga yaabaa in lagu casilay haddaan dowladdu iskaba go-aansanba dadkii wax bartay oo suuqa ku jira iyo saameynta ay social media ku sameeyeen markii dowladdu aragtay inay go-aan ka qaatan dhici karta laakiin culays hay-ado waxbarasho oo ay dowladdu ku saareen inaan lagu casilin baan u malaynaya waa ka okay laakiin weli ma inoo sheegin qaabkaad u jeclaan lahayd wada tashiga dowladda inuu u dhexmaro iyo bahda waxbarashada waa fududahay waa in la isku helo waqti fiican waa in la isdhegaystaa waa in la ogaadaa maxaan ku iradaa dabeecadaha waxa jira ay leeyihiin waa in ogaadaa participationkuna waa inuu ka qayb qaadashaduna waa inay xooganaataa waqti fiicanna waa in waqti fiican waa in loo helo intaas axmed marka aadan kuu soo laabanaa dalada waxbarasho ama hay'adda bahda waxbarashada iyo bahda isgaarsiinta macnaha waxay ka sheegteen in wada tashi uu yaryahay adigana hadaayta hadalkaada waxaa ku jirtay in macnaha dowladda ay ka gaabinayso waxyaabihii laga rabay arrimahan caymiska oo kale marka ilaa xad intee la eg ayaa wada tashi uu ka jira arrintan caymiska oo kale tusaale ahaan marka sideeda waxaad moodaa markii la tashi la samaynayo in akhbaar aan jirin la raadinayo si wixii la samayn doono mataqaanaa tayada kor loogu qaado la tashiga horta waxaa qayb weyn ka ah dadka isticmaalaya adeega ama mataqaanaa customers ama consumers in mataqaanaa laga tixgeliyo tiina waxaad moodaa weli heerkii lamaba gaarinba haddii argan sida isgaarsiinta oo kale waxaa isticmaala telefonada waxaa shacbiga waaye public waaye publicana waa inay qayb ka noqdaan markii la sameynayo mataqaanaa consultation maxaa service iga isticmaala ma fiican yahay muxuu yahay ma liitaa qaalin yahay qiisna markii dhankooda in laga helo waaye marka waxaad moodaa waxaa arrinta xooggeed hadda ay ka taagan tahay in dadkii adeega isticmaalaya adeegii tixgelintooda aysan meeshii aysan weli gaarinba hadda aniga amniga maa keenayo ma naqaano laakiin wax hadda cad laga sheega ma laha sababta markastana waxaa waa haddii la sameeyo mataqaanaa product waa marka waa in laga tixgeliyaa cid isticmaalayso inay mataqaanaa ay qayb ka tahay markii mataqaanaa waxaan la sameyn maxaa waxaa markii aad samaystaa mataqaanaa alaab aad samaysaa alaabta waa la suuq geyn haddii la suuq geyna waxaa garanaya publica garanaysa publica marka waxa ma u baahan tahay iyo quality noocii ma tahay marka anaga waxaan rabnaa inaan la adkeeyo in laga qaybgeliyo publicada markii la sameynayo consultation inay qayb wixii ka ahaa si ay u ogaato waxaan la sameynayo adeega ah tayadoodii ma tahay ama si wax u ray ma tahay hadda telefoonka Soomaaliya hadda tay ahaan muxuma fiican yahay laakiin waxaad moodaa qiimo barayska ma fiican yahay quality ma fiican tahay xilli kasta ma leedahay mataqaanaa adeegii available ma yahay marka in mataqaanaa la ballaariyo consultationka waa mataqaanaa laga dhigin dowladdii oo dan leh iyo ninkii adeega bixinayo mataqaanaa private in lagu keeno ee xoogga la saaro mataqaanaa consumers isticmaalaya adeega primarka suuqa la keeno taas xoogaa mataqaanaa idinka hadda hay'adda ereydiina mana wax wada tashi ah oo ku saabsan arrimaha caymiska ma jiraan inta hadda ogtahay la tashi mataqaanaa anaga hadda sidii hadda loogu dhawaajiyo mataqaanaa oo publica weli ma jiro laakiin shakhsiyaada jiro iyo mataqaanaa shirkada danaynayo inay caymis ay samaystaan laakiin sidii hadda markii la sameynayo mataqaanaa sharciga isgaarsiinta la sameynayo qaabkii mataqaanaa shacabka looga qayb qaysiyey anaga waxaas weli ma la gaarinba hade waxaa waaye adeegiyaa ka duwan marka loo fiiriyo mataqaanaa isgaarsiinta iyo kan waa kala duwan yihiin okay excellence adan kugu soo laabanaa hadda markii arrintan xajka dowladdu waxay u saartay guddi ka madax bannaan oo arrimahan maamulaya arrintaas marka ma wada tashiga ku imaaday mise qaab kale ka fiican oo industry-ga ay u wada tashan lahayd ayaa jiro oo si manaha ay ku wada qanacsan yihiin dhinacyada kusayso runtii baarkan barnaamijka laftigiisa dhinac ka eegno waxa weeyaan wada tashiga iyo waxaan oo dhan waxa keenaya burburkii dowladnimada institutionskii dowladda iyo wasaaradihii iyo hay-adihii oon dhisnayn hadday dhismeenna
weli iska ugub ah macnaha hawshii la rabay inay wada qabtaan oo dhammaystiran aan jirin taas waxaan leeyahay weli hadda la leeyahay baarlamankay yaalaan iyo weli ma soo dhammaan wada tashma waxay ahayd waxoodii inay hadda baynaan inay wax dhan yihiin magaranaysaa wax ay shameyn hadda intaan wada wararka ahmed cilmi caymiska oo kaleeto caymisku Soomaaliya caymis weyn bay lahayd haddaan ogahayna waxaa laga aan tilmaamana nacam Lloyds oo adduunka weyn ayaynu partner macnaha la lahayn waxaanu lahayn xarumo waaweyn ayaynu ku lahayn dalka waxay lahayd macnaha hay'ad waxay ahayd institution dawladda kuwa ugu waaweyn ka mid ah waxay ahayd mitaal hadda Soomaaliya soo kaleeto markii la leeyahay yaa iskale waxa iskala bangiga dhexe iyo caymiska ah institutions kii rabay inay dawladda kabaan waa meesha ka maqan marka ninkan qaybtii ganacsigay dhiseen oo ku mahadsan yihiin laakiin waxa dhiman qaybtii dawladda oo weli aan maaragtay meesha aan jirin marka haddaan ta xajku noqdo xajku runtii waxay ahayd inay timi cabasho ay ku cabanayaan shirkadaha dadku ay leeyihiin servicekii aan rabnay ma helo taasna ay ka timi maha dawladda hadda mitaal xaqiiqdii camdaano iyo jubba waliba daalo marka ay ku jirtay waxay ugu horeysaan maraya ilaa iyo maantana ay ku jirto nacam adkaysi intaa la eg oo aban dhaw leh waa ku mahadsan in lagu amaano ay tahay laakiin waa maxay dadkii joogay maxay ahayd tagayay khaliijka tagayay Sacuudiga tagayay oo u tagayay xajka ama cimrada waxay bilaabeen in xagga laga soo qaybiyo miidiyahan ka daawanay TV-yada oo leeyahay service-ka rabnay ma helo tiiba marka waxay dhalisay in dawladdu ay ka hadasho la wasaaradii arrintaas hal la galo taasi ku timid marka baaritaan badan in la yiraahdo waxay u baahan tahay marka in xogaa nafis shirkadaha la badiyo marka waxaan qabaa qayladii shacabka ayaa waxaana ku yimaadeen oo wax si toos ah loo taabanay TV-ga ka daawanayay kadib marka waxay noqotay in talada la badiyo laakiin anigu hadda qolooyinka talada hadda oo la magacaabay guddiyada la magacaabay waa xun yihiin waa fiican yihiin ma oranay kuwii ku habboonaa ma yihiin ma oranay laakiin niman ma garanaysa culamo badan ayaa meeshii ka muuqda wasaaraddiina waa joogtaa waxaan qabaa dadka maxay ahayd laftigoodu ku leh ama ganacsiga laftigiisa ama maxay ahayd taariikh baa jira ilaa xajka maxay ahayd deegaanada laftigooda iyagu diyaariya in xataa contribution laga qayb galo talada laga geliyo dawladaha dadka qaadaya in iyaga loo yaro maxay la tahay oo wax laga weydiiyo u baahan tahay iyo marka anigu waxaan qabaa culamada keligood oo hadda laga dhigay in maaragtay ay yihiin nimankii ay wax ka go-aan keliya ma aha laakiin hawl hadda waxay qabteen ay ballaareen oo dadka kusiideen marka kelmadda ahayd wada tashiga xagga xajka laga sameeyey qayladhaanka shacabku ka yimid guduhu ka yimid public buu u yimid taasaa ku kaliftay inaan marka la yidhaaho aan wax ka qabanno marka laba dhinac waa ku timaadaa mar haddii dadku qayliyaanna tixgelinteeda leedahay marna waxay ku timaadaa systemka la rabo in la hagaajiyo labada taana waa ku timaada marka tan hadda waxay kusoo hormartay qayladii shacabka ayay ku timid hal arrin aan rabaa inaan raacsado maadaama hadalku uu ku wareegay consultationka muhiimaddu leeyahay inuu aada u ballaaray waxaa runtii aada muhiim u ah in adeeg kastoo la bixinayo intuu saameynayo oo dhan ay qayb ka noqdaan su-aal ahaan hadda walaalka hortuu ka hadlay ka qaybgalka shacabka bulshada masalan waa run had markaan ka hadlaynay runtii waa laga yaabaa in adeega sida dadku tooska u bixinaya shirkadihii iyo hay-addii markaa qaabilsaneeda dawladdu inay wada shiraan laakiin dadkii adeega loo qeybinayo ama adeega isticmaalayo oo ah end userka ah waa qofka ugu mudan runtii inuu isaga laftiisa la weydiiyo waxyaabaha uu ku qabo nafci iyo waxyaabaha dhib kaga yimid si loo xaqiijiyo in shuruucda lagu daro tusaale ahaan arrinta adeega telefoonada markii laga hadlayo runtii waa la tixgeliyey meelo oo waad arkaysaa shuruucda markii la qorayay in dadka consumerka ah rightskooda dad xataa matala oo bulshada rayid ka yimaada in guddiyada lagu daraa la soo jeediyey macnaheedu wax kale maaha adeega qofkan uu helay ma yahay adeeg lacagta uu ku bixinayo ay tahay feer oo aanan maaragtay lacagtii la doono la iska saaray ma u yahay adeeg lagu kalsoonaa karo
diyaar ah goob walba uu ka heli karo mise mar walba markii uu soo dhaco adeegiisa unbuu iska qaadanaya inta kalena kuwii baa igala tegashay taleefonku waa hawada iga maqan iyo anteena iga maqan uu leeyahay waxaa la mid ah arrimahan kale masalan arrinta hadda xajkoo kale ma yahay qofkii adeegii valuegii lacagta uu bixiyey wax u qalma ma helaya hadda arrimaha consultationka rabo waxaa waaye masalan waxaan maqlaynaa ama dhici kara haddii la yidhaahdo si wixii loo xaqiijiyo wixii dhan fragmentar hala kala daadiyo oo qof walba soo istaago wax la siiyo waxaa laga yaabaa qof walba inuusan awood u lahayn xitaa meelahaasa miisaan rabta marka qaarkood mogtahay inaad waxa aad hagaajinayso inaad ka darta maaha waa inaad wanaagga la sii aado mogtahay dadku waa la wada joogaa magaalada waa la wada maqlayaa sectoradu waa qayladu waa soo yeeraysaa haddii masalan qof kartideeda iyo capabilitygeeda aan lahayn in la yidhaha xataa regrouping samee maahan haddii qof walba meel hal la istaago waxaa laga adeegii iyo muwaadinkii aakhirkiisa inuusan adeeg helin ka dhexgalay su-aasha hadalkaa ka dhawaajiso oo ahayd wada tashiga imise sano ayuu sharciga isgaarsiinta baarlamaanka yaallay ama uu process ku jiray waxaa malanaya 5 sano ka badan maya sharciga mudduu yaallay xilligana markii ugu horreysay horta 2012 baa markii ugu horreysay golaha wasiirada laga ansixiyay 2012 baa la ansixiyay 2012 waxay ahayd 16 February annaga waqtigaas wasiirka ka mid ah raggii uu codeeyay ansixiyay iyadoo uusan baarlamaan gaarin yaa waqti dawladii markaa waxaa dhamaaday transitionalkii kumeel gaarkii 2012 ba aakhirkeedii waqti dib loo soo celiyay macnaha waqti la geeyay markii ugu horeysay xukuumadii ka dambeysay baa geysay waa 2013 baa horta baarlamaan cilmigu waqtigiisa kadib 13 iyo waqtiga la ansixiyay waxa u dhaxaysa 4 sano afartaas sano marka waxaan dhihi karaa consultation uma xanimnay wuxuu xanimnaa xasilooni darrada horta guud ee waddanka ka jirta xagga siyaasadda iyo isbedelada joogtada socday waayo afartaas sano afar wasiiraa joogtay oo meesha qiyaasayo inaad raggii ka midka ahaa ka mid tahay xukuumadii isbedelay mar walbana wasiirku markuu yimaado intii uu fahmayo hawsha iyo processka u baahan tahay iyo inuu gudiyadii la shiro yaa haddana hoostiisa waxaa ka dhacday isbedel marka consultation maba la gelinba waa mid waxaa hubaa oon ku xaqiijin karaa dadka markaa accesska lahaa ama hay-adaha gaarka loo leeyahay ha u badnaadeen ama shirkadaha qaarkood oo laga yaabo iyo inay iyagu yihiin dadka ka warhayo wey laakiin in public loo soo dejiyey goob public laysuguma imaan hadday ugu roontaa waqtigii ugu dheeraa ay heshay masalan xukuumaddan hadda waqtigaan ahay waa soo gabagabeynayna macnaha marka waxaan ula jeedaa waan rabaa nuxurka inuu kusoo ururo consultationkaas wuxuu ka mid yahay meelaha lagu heli lahaa aragtida dadka aragtida keliya maaha sharciga keliya waxaa laga yaabaa dadka inay privateka ama sida gaarka hawsha u wada ay qabaan arrimo kale concern kale ay qabaan waxay qabi karaan arrimo security ku saabsan waa meesha kusoo bandhigi lahaa waxay qabi karaan arrimo baahi oo ah macnaha in la tayeeyo capacity building inay u baahan yihiin saa dawladda la rabaa meeshaas kusoo bandhigi lahaa sababtoo aqoontii waa la arkay wadankii ammaankiisii waxaa jira meelaha qaar in dadka gaar loogu dhibaato waxyaabahaas oo dhan meesha lagu soo bandhigi lahaa hadda waxaa jira hay-adaha qaar oo aan maaragtay access u haysta aqoontii sa ayaga magacii dowladnimada kuma talahay laakiin kii ka shaqaynayay uusan access u haysan inuu aqoontii aado maxay ahayd marka oo laga rabay waana meesha wada shaqaynta in loo baahan yahay laga helo labada dhinac inay fursad u siiyaan kuwa sida tooska maalin walba shaqada ugu hay gacanta inay access u helaan informationkaas sida hay-adaha caalamiga oo jira hadda tababaraa la bixiyaa shirana la tagaa ku aadan aqoon kororsi waa tegi doonaa laakiin macnaha waxaan ka wadaa in wada tashi ay kusoo ururaysaa baasha waqti dheer leh okay waa soo gabagabeynayna la tashiga waxaan rabaa inaan ku biiriyo sharcigan inta uu qabyo qoraal ku jiro iyo inta uu socdaay haddii jeer ma aha mid si mutawaatir oo xiriir u shaqaysa wuxuu sida wasiirku sheegay waxaa saameyn ku waxaa saameyn ku yeesha isbedelka siyaasiga waddanka dhaca tan haddaan usoo qaato tusaale ahaan siyaasadda waxbarashada waxaa laga yaabaa inaan weli baarlamaanku aanu marsiin kulli waad ka warhaysaan haddana laga yaaba in 7-8 wasiir oo ku kala xafiiska iska bedelay bay gacanta ku hayeen oo mar uu soo bandhigay waxaa laga yaabaa in dhowr jeer dib loo soo bilaabay oo shaqadii dib hore waday meesha inta loo watay mid cusub la soo bilaabay welina ay dhici karto inaan laga boganin oo dadkii stakeholderska ah dadkii maxaan ku irahdaa xeerka saameynaya inay qayb qaataan
inaan weli aanay si fiican uga bogin laga yaaba iska dhaaf dadweynaha iyo waalidiinta iyo dadka ay tahay inay waxbarasho toos saameysata inay cod ku yeeshaan ama ay wax ka ogaadaan balse in laga yaaba hayadaha abaabulinaya xitaa waxbarasho ka shaqeeya inaan dhammaantood access aan u helin taasna ma ahan wax kale ee waxaa imaanaya isbeddel fara badan oo joogto ah ayaa yimaada oo had iyo jeer kala goynaya hawshii socota qofka cusub yaa wuxuu u baahan yahay inuu meeshii fahmo u dhiso maxaa ka horreeyay ya muddi ku qaadanaysa markuu fahmo bilaab waxaa laga inuu xafiiska bedelo mid kale u yimaado waxyaalahaas waxay kamid waxyaalaha consultationka nuxurkiisa xoogaa yaranaya kamid like consultation waa jiraa oo dadka zero maaha waxaan kusoo dhawnaa gabagabadii axmed ablaade hadeed wuxuu aada ugu dhawaajiyey in manaha la wada qarsan yahay baahida ama loo qabo dowladnimada iyo hayadaha dawliga sidoo kale manaha doorka ay ka leeyihiin private sectorka marka laakiin una ay tahay sidii loo heli lahaa balance oo dheelitir loo siri lahaa doorka ay dowladda qaadanayso iyo doorka ay qaadanayso shirkadaha gaarka ay qaadanayso adi marka sidee u aragtaa the way forward manaha sidee hore loogu socon karaa horta mid waxaa muhiima in ay tahay ay caddahay waddan waxaa maamulo dowladda waxay samaystaa siyaaso ama ha noqdo waxbarashada ha noqdo caafimaad ama ha noqdo siyaasa ha noqoto markii dowladda ay samaysanaysa mataqaanaa sanadka waxbarashadana markasta waxay dishaa dadka dalka degan qaabka in wax loo bara ay rabto dowladda samaystaa laakiin markay noqoto mataqaanaa dhaqangelintii mataqaanaa waxbarashada iyo yaa samaynaya sida delivery waa gaar zamankii aniga hore waxaan aqaynay dowladda soomaaliya iyadana booliska lahayd iyadana shaqada xoogeeda qabanaysa oo private kuwa yaraan laakiin dagaalada sokoy waxay keeneen in wax kasta dowladda aan isku halayn karin haddii meesha ay ka baxday dad kale ay soo galeen haddana ay lagu qasban yahay in la isu jiro dowladdii siyaasadeedii iyo waxbarashadii socotay qaabkii lasu waafajinaa laakiin muhimta waxay tahay in dowladda ay ogolaato in waxbarashadii qayb ay ka noqoto private wixii laakiin siyaasa policy ah ama ha noqoto macalimiinta wax looban lahaa ama ha noqoto manhajkii wixii kabka in laga helo plus nimankii waxbarashada sameynaya private ka ay helaano waxtayadii waxbarasho kor loogu soo qaado iyo standardkii la rabayna la soo gaaro laakiin hadda anaga marna ma filayno in loo noqdo nidaamkii laga yimid oo mataqaanaa waagii oo gacanka u jira ma loo noqon doono hadda waxaa waaye gaabaa soo baxay gaabkiina dadkii hadda waxaa lahayd nin meesha ka tagayna buuxaa leeyihi adeeg waa loo baahan yahay in la qabto hadda qof xanuunsan mogtahay dowlad ma sugi karo taasna in loo geeyo hadduu noqdo daktar oo noqdo bravo dowladda waxay ka hadlaysaa qaabkii dadka loo daaweyn lahaa in la soo gaarsiyo standard tasaa muhiima mar hadda laakiin hadda sidan aan filaynan siyaasada ma kala fogo laakiin hadda dowladda prioritigeeda yaa badan mana degana dowladda weli waxaa kaloo saameyn ku yeelanaya daadejinta systemka dawliga u dhiso saameyn ku yeelanaya habkan cusub oo federaalka ah la qaatay iyo kii unitariga ah ayuu jiray waa kala nooc systemka warna wax ku dhisnaa hab unitary ah oo hal dowlad iyo hal nidaam iyo hal meel ka soo baxa kana wuxuu u yeeshay qaybo fara badan isu keenitaanka ku qancitaanka federal member stateska wasaaradahooda inta waxbarashada ku qancaan wax dowladda daawato waxaa laga inay waqti qaadanayso oo iyo dhammaan xeerkasana waa saas kii isgaarsiintaado kii duulimaadkaado communication maxaan ku dhaha transportationka taasina waxay keentay qudheedu waa hab u baahan iyo qudhis in la fahmo oo waxna hagaajin karo waxna dib u dhigi karo wasiir qorsheena ku salaamanaya fursad waxaa weeye labada dhinacba inaad istaagto mar dhankii dowladda aad istaagto oo mas-uuliyiinta waddanka aad ka mid noqoto marna aad fursad u heshay inaad dhankii ganacsiga gaarka ah aad istaagto labada dhinac aragto sidoo kalena aad manaha wax ka xasuusato intaanay dowladda burburin qaabkii uu qaranka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya u shaqeynayo sidee u aragtaa marka in hadda xiriirka labada dhinac loo dheelitiri karo hore loogu socon karo waa su-aal aad u fiican runtiina waa waxa la raadinayo oo loo sameynayo institutionskan waxa weeyaan burbur baa dhacay dowladnimadii baa meesha ka baxday waxaynu ku dadaalnay in dowladdii soo noqoto private sectorkii waa xoogeysteen kaantoodii waa ka soo baxeen waa inay ogolaadaan maxay ahayd private sectorku inay maaragtay public tii dowladdu ay iyadoo dib usoo noqoto oo la ogolaado khidmaddii iyo sharcigii iyo nidaamkii waxaad moodaa marka in ay halkaas si laysu yaro diidan yahay oo ay dadku hadda wakti baa hadda la jooga oo 30 sano qiyaastii 30 sano waxay dhalisay dadkii waxaan ku joogi jiray oo yaqaanay ama maamulayay in ay hajiraan ama xanuunsadaan ama tii allaba u timi oo ay ka baxaan marka in yar oo kooban inagu hadda
da'deena uun ah ayaa kasoo gaaray baa laga yaabaa oo hadda sii muuqda laakiin intay naga yaro talada ma hayaan taariikhdana ma hayaan anigu marka waxay la tahay tii dowladnimada in la ogolaado institutionskii dowladda oo jiri jiray maaha sidii kacaanka kale inay ku shaqaynayaan laakiin dowlad ahaan qaybteedii in hadda la ogolaado wasaaraddii maxay ahayd gaadiidku inay jirto isgaarsiintu inay jirto caafimaadku inuu jiro bitaan wax ka soo baxda caafimaadka iyo waxbarashada heer waxaan gaarnay in waxbarashada ilaa heer jaamacadeed qof walba bilaash uu kaga soo baxo dhakhtarka caafimaadka tegaysaa cusbaa baa tegaysaa bilaash waa lagu daweynaya waqtigaas waa tegey waqtigaas maanta ma yahay laakiin waxaa rabaa maxaa buuxin karaya waxaa buuxin karaya in dadka privateka ay ogolaadaan dowladdu inay tahay dowladdii sharciga iyo nidaamka ummaddan u hagaysay kala xanibaysay haddii dadka iyagu ay sida hadda markii laga sheekeynayo jahweyn telefoonada hadday isticmaalaan wax dheeri ah oo aan servicekii la rabay aana bixinayn ha noqoto hawadu ka baxay lacag dheeraada wixii laga rabay laga waayo waxaa rabaa inay ilaaliso waa dowladda rabaa inay ilaaliso oo dowladdu tiraaho waa lagu khaldanya xataa punishment xataa ganaax baa jira xataa service xataa marka waxaa rabaa in meeshaasu ay ka baxdo awalkii la diidayay oo ahayd magaranaysaa in dowladdu ay monopoly wax lagu haysto hadda laftigeedu in ganacsatadu ay noqoto monopoly in wax lagu haystaan anuu maanta haddaan wax haysto iraaho yaa laguu soo gelin waa in laga dagaalamo yaa ilaalin kara dowladda ilaalinaysa marka dowladda ilaalinaysa in xataa ay noqoto inuu yidhaaho anigu fiildkaas qof kale iima soo geli karo dowladda rabaa inay u samaysa nidaamka iyo sharciga marka waa topic adag oo aada u ballaaran runtii ana waxaan qabaa wayna soconaa hadda nina dhalin mayno laakiin dowladda waxaa laga rabaa inagoo inteynanu ka mid ahaan jirnay dhinacna aynu kor joogto ka nahay in dowladdu kaalmihii la rabay inay buuxiso iyaduna sharcigeeda nidaamkeeda la timaado waxaa laga yaraa dowlad inaan canshuur la-aan socon karin service la-aan aanay socon karin in qaybo badan ka maqan tahay ay wax ku abuuri lahaayeen oo ay leeyihiin annaga hadda waktigan sharciyadu aan noo dhisnayn ama waxaasu malaha ma jiri jirin mise ma jiri jirto sowad garan waxaa laga yaabaa inay wixii ay iyagu ku heli lahaayeen ay dadka ku daweyn lahaayeen waxbarasho ku siin lahayen hadda waxbarashadoo kaleeto aad baan ugu mahadnaqa waayo haddaad aqoontu kaa dhimato wax kuu nool ma jirin marka ragga aqoonteeda inay soo gaarsiin in loo ogolaado in maxay ahayd kaalintooda ay wax ku helaan dowladda wax ka helaan dowladda wax ka helaan waxa soo gelaya hadda mitaal anu marmar waxaan dooda yar ku dalnaya dhawey waxaan qolooyin waxaa yeeray halkan ku darsadeen qolada naafada waxay yidhaaheen waana aad baan u liidana waxba gacan meela kama helo dadka dagaalada kusoo dhintay dadka sidooda u naafooday waxayna waxa ficlaan lahayd 1% in degada laynii saaro hadda dowladda hoose waxaa laga yaabaa inay 15% ay u saaran tahay 15% maalintii loo saarayey waxay ahayd in ay muxuu ahaa aan cashuur qaadi karayn laakiin cashuur bay qaadi kartaa waddanka iyada haysta laakiin 15%ku dheer bay ku tahay laga yaabaa inay over 1 million noqoto bishii ama million iyo bar marka waxaa ka wadaa in la siiyo servicekii meel loo saaro oo la yidhaho intaasaa loo goynaya dowladda ay leedahay ay dowladda isku kabi karto mushaharkeeda iyo shaqaalaheeda marka iga bahdana ma rabi laakiin doodan aad waxaan ugu soo dhaweynaya dood aada u furan oo magartaa u baahan inaynu hataa dadka sii wado oo weliba doodahana aan weliba mararka qaarkood xogaaga yaroo politikalka oo salaaxa dhab loo gelayo khaladaadka jira su-aasha ku dambeya waxaan weydiinayaa jahweyn sidoo kale adnagu fursad waxaad u heshay in aad mas-uul ka soo noqoto dowladda haddana aada mas-uul ka tahay hay-ad gaar ah oo loo leeyahay oo ka shaqeysa arrimahan isgaarsiinta iyo warfaafinta marka sidee aragtaa in hore loogu socon karo su-aasha hore socodka hay-addaa aada u muujiyey tallaabooyinka ugu fiican ay tahay in la qaado hal arrinan anigu aada u adkeynaya oo ah in labada dhinac ee la tilmaamay ee ah waxa maaragtay howlaha gaarka ah dadka wada isxilqaamay wixii ay qabteen aan la dafari karin iyo middan guud ee shuraakada lagu yahay dowladnimada saa kuwa private sectorka dowladnimada wax ku leh in qolo walba horta kaalintooda ay ka soo baxaan inay jiro engage macnaha inay ishelaan israadsadaan inaan la kala gabano si toosa ay isu dhexgalaan isu falgalaan waxaan isleeyahay
ajendaha iyo doonidda iyo mas-uuliyadda waa la kala baaxad weyn private sectorka walaalka hadda ka hadlay ablaal waxaa laga yaabaa isagoo waxbarashada inuu xooga saarayo ama areada uu ka shaqeeyo laakiin dowladda waxbarasho keliya kama shaqeyso iyadu waxay leedahay qorshe caam ah oo dalkoo dhan national development plan jira marka kii insurance leh kii isgaarsiin leh kii gaadiid leh kii wax kasta waa inay qaabisho marka iyadaa ka mas-uuliyad weyn kana badan waxaa la rabaa marka mas-uuliyaddaas iyo weynidaas oo runtii aad markii ay ruux saaran tahana aad dareemi karto culayskay leedahay oo aan wax badan loo soo joogo in ay iyagu qaataan mas-uuliyaddaas lagama carari karo waxay kalifeen marka inaad hoos ula degto maxaa la rabaa private sector-kuna hay-addu waa hay-ado intaasoo arrin iyo siyaasado waaweyn iyo economic plan wadanka dhaqaalihiisa lagu soo kabayo saa wadan faqriya oo saboola oo dhibaato iyo colaad ka soo baxanahay in iyaguna ay iimaansadaan aysan sharaysan hay-adaheeda dowladda aysan u fahmin dowladdu wax dadku boobo maaragtay kuwa fursadis maaragtay opportunistic aho fursadaa kusoo martee xaabsoo kala dada oo la iska yareynayo inaysan noqon iyaguna ay u muujiyaan inay yihiin dadkoodii waayo sectorkan hadda ka shaqaynaynaan arkayay markii horena aan ka shaqaynaya hadda intaanan xataa dowlad iyo howl iyo public office aanan tegin waxaan xaqiijinaya ama on ii muuqatay cidda ugu horeysay ka faa'iidaysa sharciga inay tahay shirkadaha isgaarsiin waayo sharciyaddaa keenaysa marka way forward waxaan kusoo koobaa in la wada shaqeeyo in si maaragtay daahfurnaana loo wada hadlo in qolada kale aysan caburin aysan aaminin inay maaragtay iyada soo maqan tahay laakiin loo arkay in dan guud laga wada shaqaysanayo oo dadkii loo wada shaqaynaya khaasatan liidka iyo hogaanka waxaa iskale publiga sababtoo ah iyagaa intii oo dhan isku wada waayo aragnimada ay ka bartaan caafimaadka iyo waxbarashada yaa la rabaa kuwa isgaarsiintana inay ku dhaqaan intaas aan kusoo jeeda axmed maxaa ku diraysaa aniga hadda wixii hadalka xooggiisa waa dhamaan laakiin jeedada waxay tahay haddii dowladdii ay rabto in adeegyadii dalka laga sameynayo ay noqdaan adeegyo tayan adeeg badan iyada aysan maanta bixinaynin in qolooyinkii bixinaya private-ka ahaa iyada iyo in horkastay si daacad ay uga hadlaano si shacbiga u helo mataqaanaa service oo tayan laakiin haddii meesha lasu rareexo waxaad moodaa khasaare waxuu gaara shacbiga u baahan adeeg oo sax noo sameeyo okay halkaas waxaa noogu dhammaaday doodeenii aan kaga doodayna saameynta uu ku leeyahay ganacsiga gaarka loo leeyahay go-aanada siyaasiga ah iyo arrimaha dawliga ah runtiina sharaf ayay noo ahayd inay nagala soo qayb galaan jahweyn axmed cilmi ablaal iyo qorsheel